تلاح مانتي وما الرئيسو هرانو إبي أنيو وريا على عدة تاريخ ده فيلم أنو كقاعد نسد حسن نستقصه دبر نقوليني دلوقتي هي سيدي دي بيدواجع مركاني dagaaladu say u dhaceen dadkii ku hoobtay goobihii midna markay dhacday wax la tilin karo maaha dadka ku lumay labada dhinacba inta badanna ciidamada Ingiriisku wato waa laga adkaanayay laakiin markii uu dambeysay diyaaradda keenay uu ka adkaaday oo duulimaad ma lahayn dadka lidid baabu diyaaran dagaalkii la dhifiyay waxana sayidkii bay raaceen waxana dhulkooda u kala carareen nooloo naftiis meel la cararo dadkii halka laga tagay maatada ahaa waxa laga qaatay wiilash saddex kun oo wiilba waxa loo qeybiyay ciidamadii Soomaalida ahaa ee la socday Ingiriiska oo dhul bahanta ah Tala has a unique history in Somalia. It used to be the headquarters of Sayyid Muhammad Abdullah Hassan, a Somali warrior. degmada waa degmo weyn weeye dhulka ay ku fadhido inta xukunta waxa weeye waa 100 kilomitir oo isku weyn ah xukunta runtii waxaan ku taamo ayaan oran karaa ayay qalcadani tahay oo u dubdhaxaad u ah taariikhda ummadda Soomaaliyeed ay leedahay taariikhda iyada ah idinka ayaa budligeen u ah dadkii deegaankan ahaa dhulkan ahaa arrigan ballaadhoon ahaa ayuu ahaa dadkii 22 sanadood dalkooda daafacayay shisheeye isticmaal iyo duudsi iyo qabsasho intaba u babac dhigay oo ugu babac dhigay waliba geesinimadooda iyo hubkii yaraa oo ay haysteen hadduu waran noqon lahaa iyo hadduu gaashaan noqon lahaa iyo xabad kalyaale iyo uustir iyo wax la halmaala markii Ingiriis Talyaani Amharo Faransiis oo meelaha qaarkood soo cagacaynaya la isu soo daawaystay waa ogtiinoo 20 sanadood iyo koobay qaadatay oo la muquurin kari waayay kacdoonka dadkani ay doonayeen dalkooda iyo xornimadooda waagaas oo baraaruga uu qaaradeenu yaraa inay haystaan oo aan cidina ka mulaaxin karin markii dambe waxay ku galiftay dawladdii aan cadceeduba ka dhici jirin calankeeda ee Britishka waxay ku galiftay inay mixinsato quwaddii ahayd inay cirka iyo diyaaradaha isticmaasho taasoo ku tilmaaman taariikhda meeshii ugu horreysay meeshii kaliya ahayd oo lagu isticmaalay xilligaasi gumaysiga diyaarado lagu dumiyo oo lagu bamgareeyo raadkii ay duqayntaasi reebtay iyo diyaaraduhu waa kuwa aad arkaysaan oo meel walba aan idin geynayno madaafiicii diyaaradu garneedkii ay tuuraysay sidii ay u burburiyeen looga dambeyn You can see with your own eyes the RAF bombardment in our area, in our forts and in our castles. waxaanu doonaynaa inaad nala qaadataan ummadda Soomaalida meel ay joogtaan waxaanu annagu tirada ku sheegnaa 500,000 ilaa malyan qof baa ku dhintay halgankii daraawiish waxaan doonayaa inaan idinku baraarujiyo intiina caaway maqlaysay reer London joogtaan dhibaatooyinkii loo geystay daraawiish iyo waxay dal iyo deegaan lahaayeen waa xuquuq bani aadamka ku maqan dowladda Ingiriiska dariska tihiin la joogtaan goor ay noqotana waa laga xisaabtami doonaa ma cafiyeyno ma ilaaweyno tirada intaa laga xorriyadoon ku dhimatay